السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي قالقة soo dhawaada maanta iyo muuqaal cusub. waxaan rabaa inaan idin la wadaago maanta sida loo analyze gareeyo IQ option trading platform. inkastoo Soomaalideena aad ugu soo badatay barnaamijyadan online tradingka sida FX, Forex trading iyo IQ option trading platform. maanta waxaan rabaa inaan idin la wadaago muuqaal qurux badan insha Allah. akoonkan waxaa ku jira demo akoon $100 oo daymo akoon ayaa ku jirto. daymo akoon waxaa lagu siinaa all the way markii adiga aad cusub tahay. ana hadda luusaan geliyey si aan usoo kobciyo $100 aan usoo wada kobcino. marka insha Allah waxaan ku dabaqaynaa strategy mideeda kale 10 kun oo lagu siinaa 10,000 oo lagu siinaa oo macnaha practical balance ah. marka insha Allah hadda waxaan ku jirnaa practice account ayaan ku jirnaa. hadda waan analyze gareynayna waxaan ku jirnaa lacagta beerka loo yaqaano euro JBP, lacagta euro iyo lacagta ingiriiska oo Great Britain pound. okay waxaan isticmaalaynaa horizontal line. waxaan iska fiirinaynaa suuqa meelaha laga soo celceliyay celcelis ahaan suuqa meeshuu gaaray, meelihii ugu sareysay oo suuqa gaaray waad iska fiirinaysaa. waa macnaha waa very important. marka waxaan rabaa inaan laba trade camal aan tuurto insha Allah. marka insha Allah waa isla kobcinaynaa akoonkan. idinkan waxaan rajeynayaa in ay idin ahaan doonto practice. mideeda kale waxaan leenahay Telegram, kusoo biir linkiga videogan descriptionkiisa ayaa idin soo dhigaa. descriptionka video ayaa idin soo dhigaa. marka xoogaha ila yaabina kafeeya cabay xoogaa hadalka cunaya speed ay u furan. mideeda kale descriptionka video aan idin soo dhigaa Telegramka linkigiisa ama commentiga ugu horeeya ee videogan. insha Allah waxaan rajeynayaa inaad ka heli doonto muuqaalkan. good. marka suuqa celcelis meesha laga soo celceliyay waa inaad iska fiirisaa. waliba waa inaad zoom out iska dhahdaa si aad u fahanto suuqan saacadii ugu dambeeyay wuxuu ku socday, qaab noocuu ku socday. up trend ma ahayn mise down trend. meeshan waxaan uga jeednaa up trend, big up trend ayaan uga jeednaa. dadkii xilligaas ku jiray all the way xoog ay ka qabsadeen. marka insha Allah aan fiirino suuqa waa marka adiga leemanka isticmaalayso waxaa loola jeedaa suuqa wuxuu sameynaa leemanka tajinka inaad ku fiiriso. inta mar oo taabtay tajinkiisa inaad ku fiiriso. meeshuu 3 mar suuqa taabto waxaan dareensanahay in uu jabinayo, breakout uu sameyn doono. marka insha Allah waxaan filayaa inaad muuqaalkan ka heli doonto, aadna ka faa'iidi doonto biidnillaahi kariim. waan dadaalaynaa, anaga bini aadan ayaan nahay. dadaalka waa lama huraan, laakiinse mideeda kale akoon haddaad leedahay fadlan nahay wadagelin lacagtaada oo idil. ana waxaan rabaa in aan lacagtan si degdeg aan ku kobciyo insha Allah. 100 waan dhigi doonaa. okay waxaan sameynaynaa maalintii ugu yaraan 2 trade ama hal trade oo maasha Allah insha Allah. la socod wanaagsan asxaabta qaaliga ah. okay every horizontal wuxuu ka caawinaa in uu ku siiyo suuqa option a u raaci karto. okay waa fahantaan umaleynaa. okay waxaan fiirsanaa trade fiican. hadda suuqii inta saliskii waxaa laga celiyey, markaan waa laga celiyey, inta markaan waa laga celiyey, markaana waa laga celiyey. buyerskana ila fiiri, buyerska meeshan waa laga celiyey all the way. isku dayeen inay jabiyaan inta. okay hadda waxaan u jeedaa inay saliska awood badan yihiin. sila ayaan u raacay insha Allah. aan fiirsana tradekeena waan isku soo laabanaynaa markuu dhamaado tradekan iyo resultka ku dhamaado insha Allah.
good wuu nagu dhacayay resultiga aan rabnay waayo suuqa waxaan qash ka helnay siliska isku soo dayayna inta jabi inta inay soo maraan waa laga celiyay leenka haddana inay soo maraan isku dayin waa laga celiyay all the way haddana isku soo dayeen waa laga celiyay the must 3 times hadduu suuqa sameeyo break out filo waa kana 1 2 3 la wuxuu tagay meesha suuqa oo ugu dambeyn meesha ugu horeysa uu tagay ayuu tagay awjeeda inta iyo halkan waa the same line ha fiirin calaamada wiiga waa the same line marka wuxuu sameeyay comeback uu sameeyay had suuqan waxa ila muuqataa boqolkiiba 90 in uu sel ku sii socon doono oo soo daadan doono insha Allah another trade ayaan tuuro doonaa anagoo iska fiirinayno suuqa okay waxaan ku galeynaa lacag $10 ayaan ku galeynaa sorry waxaan galeynaa $12 si aan u buuxino $200 insha Allah okay good bay ayaan u raacnay halaha yar oo neefsanaya suuqa ayaan ka faa'iideysan doonaa insha Allah waan isku soo laabaneynaa resultiga uu ku dhamaado biidhnilaahi kariim asxaabta qaaliga ah suuqa saan u sheegnay ayuu socdaa laakiinse wuxuu nagu sameeyay dhaqdhaqaaq yar suuqii hoosna zaad ugu socon oo u jeedeen korna saas ugu soconin marka marmarka qaar way dhici kartaa suuqa inuu loose ku sameeyo all the way hadda aan soo celinaynaa loose ka aan sameynay qofka adiga wax ku barayo ama ku siinayo training ma ahan ujeedada you lose sameynin lose oo jira marka insha Allah another trade waan dadaalna u jeedeen trade-ka meeshiisa kuma uusan dhaqaaqin laakiin neefsasho yar ayuu nagu sameeyay okay ka soo celinayna insha Allah waan isku soo laabaneynaa trade-kan iyo resultka ku dhamaado insha Allah so good sidii aan u aragnay suuqa iyo qaab socodkiisa qaabkan ku taxliilinay ayuu u dhacay ma sha Allah waxaan rajeynaa inaad ka heshay muuqaalkan waxaan sameynay 3 trade ayaan sameynay waxaan galnay one lose labana win ayaa nagu dhacday
marka insha Allah waxaan rajeynayaa inaad adigana isku dayi doonto kusoo biir telegramkeena linkiga description video ayuu yaalaa ama commentiga ugu horeeya videogan midda kale insha Allah every single day waxaan sameyn doonaa trade adiga 3 ama 4 trade ugu badnaan 5 trade marka trade ugu horeeyo waan ku kalsoonaay meel fiican ayuu suuqii u socday sel fiican ayuu u socday waa intaan ayaan uga qaadanay kan labaad xoogaa iskaga jeedeen 10 ayaan ku galay 11 ayaan ku galay sorry 10 ayaan ku galay xoogaa waxaan dareemay in ay halis ka imaan karto trade-ka haddana kama raacin entry point-iga candle-ka mar walba candle-ka markuu saacadana ku maamusho purchase time-ka marka adiga candle-ka markuu sameysmi rabo ama candle-ka kale markuu bilaaban rabo inaad la qabsato ayaa fiican si suuqa meeshii aad u raacday aad u taxliilisay si uu kugu dhaco waxaan filayaa muuqaalkan ka heshay insha Allah tomorrow waxaan isku soo laaban doonaa $203.14 okay insha Allah waxaan rajeynayaa inaad soo biri doonto hadda kash muuqaalkan subscribe sar channelka like gare videoga u share gare asxaabtaada si uga faa'iideystaan waa inoo muuqaalka xiga wassalamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh Bye.